korneyl faarax cali waa suga faarax kooshin taliyaha guutada shanaad qaybta 72aad ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo howlo shaqo ugu maqan caasimada Soomaaliya ee Muqdisho isla markaana qadka telefoonka kula soo xiriiray muuqaal baahiyaha Som News TV ayaa ka hadlay guulihii ciidanka guutada shanaad qaybta 72aad ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka gaareen howlgallo badan oo ciidamadu ay ka fuliyeen deegaano badan oo ka tirsan gobolka Hiiraan sanadkii la soo dhaafay waxaana uu hambaliyo ku aadan asaaskii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku beegan 12 Abriil sanadkii 1960 maanta oo kala taliyuhu u diray dhammaan ciidamada militariga Soomaaliya ee ka howlgala gobolka Hiiraan ee ka wada tirsan qaybta 72aad ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo taliyayaasha sarsare ciidamada xoogga dalka asagoona ka hadlay ahmiyadda maanta oo kale 12 Abriil ay u leedahay ciidanka xoogga dalka iyo guud ahaan shacbiga ku abtirsada magaca Soomaaliyeed kulana dardaarmay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay si laban dadaalkooda ku aadan difaaca qaranimada dalka markaan dib ugu laabto guutada shanaad ee qaybta 72aad howlgalladeedii ay sanadkan sameeyeen cadowga ayagu horta ma aha ciidamadii ama dib kasta ha soo maraane wax carqalada iyo fidna sameeyey ma aha waa ciidamo aad iyo aad u adkaysi badan waa ciidamo cadowga markasta weeraro asaaga nabadiiso harsada ma aha ama hurda waxaan leeyahay intaas ka sii wadaan aadaanan ugu hambalyeynayna waana ku ammaanaynaa sanadkii guud ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo taliyaha xoogga ugu horeeyo iyo taliyaha ciidanka dhulkana ayaa baanduulista iyo taliyaha qaybta iyo baanduulihiisaba aad iyo aad ugu hambalyeeyeen uguna kalsoon yihiin ciidankaas meeshaas degan ee gobolka Hiiraan degan waxay uga dhigan tahay waxa waaye xuskii 59aad aasaaskii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed xoogga dalka Soomaaliyeed waa dadkii qaranka Soomaaliya ishiyey ka difaacay haddii kale cadow badan oo kusoo duuli lahay hadda weli u taagan inay ka difaacaan weligoodna ka difaaci doona waana indhaha waa iftiinka ummadda Soomaaliyeed marka khaasatan waxaan fariin u dirayaa taliyaha xoogga dalka taliyaha ciidanka dhulka madaxweynaha ra'iisul wasaaraha wasiirka gaashaandhigga taliyaha qaybta 72aad iyo baanduulihiisa dhammaan waxaan fariin u dirayaa in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan taasoo garab la siiyo si ay cadowga u bixiyaan muradooda la bixin taas fariin waa inuu gudbin ummadda Soomaaliyeed waxay uga dhigan tahay aasaaskii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ummad aan ciidan qaran lahayn ama ciidan military lahayn maba dhismi kartaba marka waa difaaci dalka ha noqoto dhulka ha noqoto badda ha noqoto cirka waa difaaci dalka qaranimada hay'adka qaran ee Soomaaliyeed waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed marka wax weyn ummadda Soomaaliyeed uga dhigan tahay bulshadana waxaan leeyahay Soomaaliyeed waa in soo dhaweynaynaa diyaar u nahay adinkuna inaad cadowga nala bixisaan annaguna aan idin marxabayno oo dadkeennii aan difaacayna tihiin aan gacmo koran idinku soo dhaweyno saasaan leeyahay guutadeenu aniga midaal sano iyo xoogaa aan joogaa intaasna ma seexan guuto seexatay maaha meel kasta tagta waxaan isku xiranahay guutada 72aad ee degan maxaad dhammaan waa isku xiranahay labada guutaba guutada kalena aadaan ugu hambalyeynayna saaxiibadan waa garabteena miiska iyo qaybtoo dhanba laakiin guutadan way cadowga kama baqaan way lugeeyaan cadowga way dilaan way soo qabtaan dhulka way xoreeyaan guutadan wax badan ay iskuma fadhiso guutooyinka hadda oo way ka fadhiyaan laleeyahay ama isbaarooyinka dad u yaalaan jira oo sheegta ciidanka militariga anagu markii waxaan qabnaa ka warqabtaa inay Hiiraan intay beledweyne uga baxeen ay ku tageen buulburda ilaa Jalaqsi waxaa ka warqabtaa inta dhaxalgeeyay dagaalamay waxaa ka warqabtaa inay u dagaalamayeen dhulkan badan oo maxad iyo isku fureen iyo beledweyne waxaa ka warqabtaa waraaqinka beledweyne inay rajacada kamid ah ay خارجية أو كحيل السمين أي إنه هو بدل مجالات تكفين إن دجال بدل أو كل فوق كذا كذا إثنين فبصير وحنا بدل ويكون كل شيء هذا هذه مراد في عيني وهذا طبعا
inay dhammaystiraan ay dib u xigtaan adigu ku jooga waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee degan beledweyne ka degan degmada Maxaas oo labada guutaba ah ka degan Buuro Burde ka Masabaan degan ka Jalan degan ila Sido waxa degan ciidanka joogaan ka tirsan qaybta 27aad ama deganaada xataa joohar ilaa Barxa aad iyo cabalay raagaceelada ma waa u hambalyeynaya Khalid Maxamed Ismaaciil Kacse telefishinka caalamiga Somali News beledweyne